بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa Kalsan TV oo aad alaaba ka daawataan barnaamijyo taxana ah oo inta badan wax ku ool waa bulshada Soomaaliyeed. Barnaamijkeena caawa aynu halkan ku qaada dhigi doono waa barnaamijkii taxanaha ee aad nooga barateen magaciisuna ahaa dhabka hadal. Dhabka hadal waxaynu caawa ku soo qaadan doonaa xubin aynu ugu magac darnay hiil iyo hawl. Hiil iyo hawl waxaanu dabadeed aynu ku sii xoojin doonaa barnaamij ku salaysan safarkii taariikhiga ahaa ee uu Soomaaliya ama xarunta ummadda Soomaaliyeed ku yimid madaxweynaha dalka Turkiga. Haddaba inta aynan barnaamijka u gelin marka hore waxaa halkan ila fadhiyo aqoonyahan Aadan Jaamac Kaahin oo badanaa igala qayb qaato barnaamijyada aynu ka sii deyno Kalsan TV. Aadan marka hore ku soo dhawow Kalsan TV iyo barnaamijka dhabka hadal. aad baad u tahay Faisal. waayahay intaynan u gelin barnaamijka ku salaysan safarka madaxweyne Tayyip Erdogan bal in yar aynu isu yar durtaagno taariikhda ka dhaxayso dalka Turkiga iyo ummadda Soomaaliyeed. waxaynu doonaynaa laba mirar ama hal mirar inaynu ku soo gunaanadno ama ku soo koobno maadaama taariikhda labada dal ka dhaxaysa ay tahay mid aad u facweyn kuna astan ama ku salaysan qarniyo iyo qarniyo. waxaan doonaynaa inaynu dadka Soomaaliyeed u iftiimino heykelka iyo sumcadda ummadda Soomaaliyeed ay sharaf ku lahayd caalamka intiisa kale. haddaba markii la soo gaaray gabagabadii xilligii ku meel gaarka dowladdii Soomaaliya markii uu dowladda Soomaaliya iraade ay kasii bixi doonto ku meel gaarka shirkii ugu horreeyay ee lagu qabto dalka Turkiga kaasoo ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu diirsatay waxyaabaha ka soo baxay waxa uu kaga hadlay ama uu ku furdafuray madaxweynaha iminka dowladda Turkiga oo markaa ahaa ra'iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay awoodda ummadda Soomaaliyeed ay ku lahaan jirtay geeska Afrika iyo caalamka. waxa uu ka hadlay boqortooyadii adal ciidamo ay u soo dirtay xilligii la furanayay ama furashadii magaalada Istanbul maanta loo yaqaan. halkaasoo ay ka dhaceen dagaalo ama gulufyo aad u ballaaran oo ay hogaaminayeen dad Soomaaliyeed oo magacooda ku xardhan yihiin madaxafyada waaweyn ee dalka Turkiga qaasatan magaalada Istanbul. annagoo markaa intaa kaga sii gudbi doono taariikhda faaca weyn ee Turkiga iyo ummadda Soomaaliyeed ka dhaxayso aynu doonaynaa inaan mar si gooni ah uga warrano ayaa caawa waxaynu doonaynaa bal inaynu dib ugu noqono safarkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha Turkiga uu ku yimid dalka Soomaaliya. haddaba Aadan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo Tayyip Erdogan horta waa kuma waa maxayse awoodda dhaqan iyo dhaqaale ee dalka Turkiga? Tayyip Erdogan horta marka hore waxa uu ku dhashay magaalada Kusumbiyo oo kamida qayb kamida dalka magaalada Istanbul dalka Turkiga oo dhinaca dadka aan saboolka ay degiyihiin ku soo kala markii soo horay halkaas ku dhashay kadibna reerkooda waxa uu wareegay marka meel kale oo u dhow Black Sea ama badda madow meesha loo yaqaano. adoo markuu ahaa 13 jir kadibna wuxuu ku soo noqday Istanbul markaana wuxuu ka bilaabay iskuulkii uu ka sii watay iskuul loo yaqaano Imam Hatip School oo Islamic school ah oo ku yaala markaa Istanbul ayuu waxbarashada kasii watay. marka Tayyip Erdogan aabihii marka hore waxaa nin diinta islaamka ku adag ruhantii sidaasaan markaa isugu markaa uu iskuulka maaragtay islaamka oo wax ku baranayay. haddii intaa dib ugu yar noqono Tayyip Erdogan siisaba wuxuu wax ka bartay markii dambe ee intaas sii dhameeyna jaamacad ku taala magaalada Marmar oo ka bartay cilmiga baaca mushtariga businesska. 1976 markii ahaydna waxa uu ka qayb galay urur ku saabsan samaynta urur islaami ah oo markaa isagoo qaybtaa u joogay markaa uu isaga madax ka noqday. 1994 Erdogan wuxuu markii dambe ka noqday maayarka ama duqa magaalada Istanbul. muddo kadibna wuxuu noqday markaasi inuu ka mid noqdo xubin ka mid ah baarlamaanka dalka Turkiga. haddaba waxaa jirta dhibaatooyin badan oo ka jira dalka Turkiga waqtigaasi way waxa gacanta ku hayay dalka Turkiga dowladda markaasi u badan military oo mar walba afgambi ahaan ku sameeyay kuwaas oo markaa badanaaba dhinacan qoladan aaminsan islaamka mar walba aan jeclayn in maamulka waddanka u keenaan ama ay macnaha ay u dhiibaanba. saas daraadeed mar walba ay xisbigoodu waa xisbi mar walba xagga dowladda aad moodo inuu ka cambaaraysan yahay oo aan laga jeclayn u ahaa. waayahay haddaad intaa markaa
aad ku sii yara darto taariikhda Tayyip Erdogan intaa ka badan waxay inta badan dadku yiraahdaan bulshada Turkiga ama dadka Turkishku waa dad inta badan xadaarada iyo aqoonta ehel u ah marka wadanka Turkiga oo wadan ballaaran oo dhaqaalihiisa marka Yurub laga hadlayo ama bartamaha Asia laga hadlayo wadamada aadka dhaqaalahooda u koreeyay uu yahay maxaad inooga sheegi karaysaa dhaqanka iyo dhaqaalaha awoodda dowladda Turkiga ay ku leedahay wadamada Yurub iyo bariga Asia bartamaha Asia iyo isagoo iminka usoo inta badan lagu tiriyo inuu dhinaca Afrika usoo janjeero siyaasadiisa horta Turkiga sidiisaba waxa weeyaan istaraatiiji ahaan wax ku yaala meel u dhaxaysa Yurubta iyo Aasiya waana wadan aad u ballaaran runtii marka laga hadlayo dhaqan dhaqaalaha laga hadlayna badanaa waxa la eegaa dadka populationkooda iyo dhaqaalaha intuu leeyahay iyo baaxadda dalka intuu leeyahay marka runtii populationka ama dadka tiladoodana way fiicanta tiro wanaagsan way leeyihiin meel wanaagsan ku yaala dhulkan waa dhul aad u ballaaran intaa marka laga saaro kadib Turkiga wuxuu ku jiraa dowladaha loo yaqaano economic emerging countries ama dowladaha dhaqaaladu soo kacayo oo sida xawliga u socdo ayuu ka mid yahay marka Turkiga markaad eegto dhaqaalihiisa waxaa lagu qiyaasaa 225 bilyan oo dollar sanadkiiba qayb ka mid a markaasi waxay noqonaysaa marka waxyaaba dibadda u dhoofiya may ka helaano waa 116 milyan bay noqonaysaa bilyan bay noqonaysaa qaybaha kale kala duwan oo ay ka helaan waxaa ka mid ah iyada lafteeda lacag maalgelin oo fara badan oo ilaa 160 bilyan oo dollar oo dhanka lagu maalgeliyey kuwaasoo ay maalgeliyeen ilaa 320 kun oo shirkadood qaar ka badan ay waddanka maalgeliyeen marka shirkadaha tirinaya 300 kor u dhaafay ay degan yihiin waddanka macnaha tusisaa markaasi inuu yahay wadan dhaqaalaha xaggiisa lagu aamini karo oo maalgelinta xaggiisa maaragtay runaantii aad iyo aad maaragtay ugu horumaray meelaha ay u dhoofiyaan haddaba waxaa Turkiga ka mid ah Jarmalka Ruushka Iran Iraq iyo Faransiiska iyo Ingiriiska intaba waxa markaa u bartilmaameedsan waxa weeye Turkiga siisa dhowr jeer wuxuu talagalay ama isku dayay inuu ka qayb galo markaasi European Union wax loo yaqaano taa markaas markii carqalad kala kulmay ay markaa xoog saaray in dhinacyadan kale bariga dhexe iyo Ruushka iyo Iran iyo wuxuu la sameeyo macnaha wax loo yaqaano alaaqaad wanaagsan baa mushtari haddii aan dib ugu noqono markaa 2011 ilaa 2012 dhaqaalaha Ruushka markaasi Turkiga wuxuu ahaa 9% ayuu kor u kacay laakiin waxa wadamka 6% ama 7% inuu taagan yahay sababta waxa weeye dhul uu ka mid ahaa Syria ka mid ahayd oo bacmusir xoog leh oo la geli jiray ama qaybo ka mid ah Iraq lafteeda in la galo ay muddo dagaal ka soconayo taas markaa dhaqaalihii uu ka heli jiray hoosyo dhacba ku yar dhacay kasta wali uu dhaqaalihiisu fiican yahay boqolkiiba 7 uu kor u kacsan yahay hadaba dhaqaalaha uu Turkiga ka helo siisaba uu ku tiirsan yahay waxaanu ka soo qaadan karnaa qaybo kala duwan Turkigu waxa weeyaan sida dadku moodayaan maaha waa dowlad horumartay wax walba samaysata haddii aan markaa aan ka eegno dhinaca warshadaha xaggooda xagga warshadaha marka ka eegno dalku waxa weeyaan markaa waa dad xagga warshadaha ku horumaray marka runaantii wuxuu sameeyaa gawaanida wuxuu sameeyaa maxaa tareemada wuxuu sameeyaa xataa diyaarado sameeyaa xagga marka laga hadlayo gawaanida oo dhinaca warshadaha laga hadlayo boqolkiiba wuxuu noqonayaa marka dalka lixaad xagga warshadaha ugu fiican marka la eego ugu horumarsan dalalka Yurubta waxaad wuxuu ka dambeeyaa waliba xagga waxa ka yara horeeya oo Ingiriis xagga warshadaha laakiin waliba isagu ka sareeya dhinaca marka eegto waxa ka galaysa markaasi dhinaca warshadaha inuu yahay dal maaragtay runtii ka horumaray wuxuu ku dhisaa kale diyaaradaha laftiisu sameeya helikobtaradu sameeya tareemadu sameeysan sheegi intaa waxaa sii dheer oo kaleeto Turkigu xagga dhinacan adeega bulshada waxa uu leeyahay diyaarad loo yaqaan Turkish Airways-ka ولا 240 دولار عالم كتكتا ديارadaas markaas iyada ay waxay noqotay markaa diyaaradda afraad ee ugu weyn macnaha Yurubta waxaana qaadatay 4 jeer oo isku xiga inay noqoto diyaaradda ugu wanaagsan ee Yurubta leedahay dhinaca markaa ay beeraha uu ku horumaray dhaqaalaha xagga beeraha wanaagsan yahay markaa waxa moodaa inuu waxyaabo badan oo waddankiisa kala beero Yurubta iyo meel kale caalamka la geeyo waxaana ka helaa qaasi 7 bilyan oo dollar lacag dhinaca kale xagga dalxiiska waa dalku horumaray waan ognahay magaalooyinka kamid ah Antalya iyo Marmara iyo ay ugu badan meelaha dalka dalxiisku aad iyo aad maartay u tagaan taariikhdeeda waxa ka helaan sida ay sheegeen urur ay ku midaysan dowladda dalxiisayaasha caalamka in 5 bilyan oo dollar lacag u dhan sanadkiiba oo ka helo
soo duubo waxaa ka garaysa markaa dhaqaalaha dowladda maxaa la dhahaa Turkigu inuu yahay dhaqaale aad u kobcay oo aad u dhisan dhinac walba haatay waayahay haddii aan intaa kaga gudubno dulkaxaadintii aynu ku sameynaynay Tayyip Erdogan oo ah madaxweynaha Turkiga maanta iyo awoodda dowladda Turkiga dhaqan iyo dhaqaalaheeda iyo istiraatiijiyada ay caalamka ku leedahay bal aynu in yar isdul taagno safarkii dhowaan uu ku yimid madaxweynaha ee taariikhiga ahaa safarkaasoo uu ku soo gaaray caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxa dabcan uu ahaa safar taariikhi ah inkastoo dhowr mar waxaan ugu celcelinayno waxa weeyaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka qaybtiisa aan ugu magac darnay heel iyo hawl dabcan wuxuu soo gelayaa madaxweynaha Turkiga heel iyo hawl ayuu soo gelayaa waxa uu u heliyay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay ku nooshahay mana aha markii koowaad ee uu yimaado 2 sano ka hor ayay ahayd markii macluushii bacnayd ee aadka u faashuxmeed ee dhammaan ay ka dhacday geeyiga Soomaaliyeed markaasoo waddanka uu ka ahaa madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka mudane Shariif Sheekh Axmed haddaba safarkani iminka uu ku yimid madaxweynaha Turkiga isagoo madaxweyne ah markii hore waddankeena yimanayeen wuxuu ahaa ra'iisul wasaare maxaa yahay safarkan muxuu daaran yahay muxuu kaga duwan yahay safarkii hore horta safarkii hore hadda ku noqono wuxuu madaxweynaha Turkigu isagoo prime minister sheegtay uu yimid waddanka 2011 bishii August waqtigaas oo ay ka jirtay Soomaaliya macluul baan oo caalamka dhan meel walba laga daawanayay dadkuna ay markaa ay qof walba isku dayay inuu markaas caawiyo waxa markaa noqday madaxweyne ugu horeeyay ee kusoo dhiirada dalka markaa aan ku tagin cagaha xagiisaba cagaha ku tagin dhinaca maartay maxaa la dhahaa nabadgelyada aan cagaha fiican ku tagin waxa noqday madaxweyne ugu horeeyay ama prime minister ugu horeeyay ee kusoo dhiirada waddanka imaado isagu markaas waxaa markaas la socday isaga markaas wasiir khaarijiisa waxaa la socday wasiiro kale oo kamid ah xaaska la socday waqtigaas isaga waxaan markaas soo booqday oo indhiis ku soo arkay meelihii dadku ay deganayeen qaxootiga ah markii uu meelaha tagay kadibna waa dhibaatadii waxay tahay arkina waxa markaas ay waddanka u qoondeeyeen marka lacag fara badan in dadka lagu caawiyo oo markaas ay maartay dadka caawiyaan waxaa la socday waqtigaas isaga in xitaa dalka Turkiga laftiisu in shacbiga Turkiga ay ku deeqeen oo lacag badan ay ku yabooheen iyagoo tifiyada isticmaalay meel walba lacag 300 milyan oo dollar ay ugu talagaleen abaaraha noocaas ah in laga hortago marka adigu mashaariicda ugu talagaleen markaas waqtigaas iyo ilaa hadda qaarkood soo gaareenba waxay noqonaysaa ilaa 225 milyan oo dollar lacag ugu talagaleen marka Turkiga inuu Soomaaliya markaa uu wax ka qabto ku bixiyo safarkii hore hadaba uu meesha ku yimid waqtigaas isaga ah ma ahayn safar kaliya oo macaaluusha la kala dagaalamaya waxaa ka qaaday barigaasi oo ku yaboohay in dad dhan 2,000 oo arday oo waxbarasho ay ka siiyaan scholarship ama bilaasha dalka Turkiga waxaa intaas si dheer oo kale in dadkii markaa meesha joogay laftoodii uu u soo diro hay'adda bisha cas ee Turkiga si ay meelaha u dhisaan ay dadku degan yihiin isla markaana ay macaawinada iyo wax la siinayaan uga warhayaan kaas markaa booqashadii 2011 haddii aan kusoo noqono marka booqashadii 2015 imika January ahayd shalatigeedii madaxweynaha Turkiga markaa muddo dhowr sano ah ayaa ka dambeysay muddo dhowr sano ah ayaa ka dambeysayna Turkiga markaa inta wax ku dhex jiray mashaariic ilaa inta u dhaxaysay wax ka qabanayeen kuwaas oo ay kamid ahaayeen suulkii Polytechniga oo ay dib u dhiseen oo cusboonaysiiyeen oo ay kamid ahayd wadadii Makka Mukarrama oo ay lafteeda ay noqday wada aad u qurux badan oo wada dib loo dhisay oo loo habeeyay waxa kale keenay xataa in ay kusoo biiriyaan magaalada Xamar in bilceed wax laga qabto waxaan ognahay in dowladaha hoose ee magaalada Muqdisho dowladda Turkiga ay siisay ilaa 70 gaari oo 70 la qashka lagu qaadaa isla markaana shaqaalihii ka shaqeynay waliba laftiisana ee dowladda hoosena ay ururka bisha cas ay maxaa Turkiga leeyahayna ay mushaaradii ka bixinayaan oo siinayeen si magaalada bilceed soo baxdo waxaas markaa hawla ay waqtigaas ku gudo jireen haddana booqashada dambe iminka uu madaxweynaha Turkiga hal ku yimid waxay booqasho ka duwan tii hore sababta waxay waqtigaas wax ka soo wareegay dhowr sanadood dhowrkaas sanana indhuhu ku hayay markaa Turkigu meelba meesha wax marayaan markii uu arkay in nabadgelyadii waddanka soo fiicnaatay in shabaabka meelo badan laga saaray magaalooyinkii la qabsaday in dalkii uu iminka soo bedelay madan malaha dhaqan dhaqaale oo horumarkii soo yar kobcayo ay markaa isku dayay markaa inuu meesha yimaado wax ka qabto markaa sibal in garanaysaa mashaariicdiina indhiis kusoo arkay laga fuliyay meesha isla markaana wixii markaa uu ka fulin kale uu ka fuliyo waayahay haddaynu dib ugu noqono xarig jarkii madaarka magaalada Muqdisho adeecadda International Airport oo lagu soo biiriyay terminal cusub iyo isbitaalkii Digfaar oo dib u habeen lagu sameeyay qudhiisa ma la oran karayaa
arrimaha iminka markaa dowladda turkiga ay ku dhiiratay inay wax ka qabato horumarta ama bilicda magaalada muqdisho waa kuwo hordhac ama la oran karaya mise waa mashaariicda intaas ayuun bay ku eg tahay haddii aynu ummadda u yar bidhaamino horta waxa weye sideedaba marka dan la dhisaayo waxaa loo yaqaan infrastructureka waa mar walba ay muhiim weeyaan dowladda turkiga markaa waxaa adeeg ay mar walba uga hadlayso isbitaalada macnaha airboorada dekedaha uga hadlayso wadooyinka uga hadlayso waxa weeyaan wadanka haddaa marka kuwa marka hore laga dhisin dee wadanka dhaqaalihiisu ma kubcayo marka waxay xoog saarayaan in dhaqaalaha iyo meelaha macnaha kaabayaasha dhaqaalaha lasoo kiciyo marka hore saa daraadeed ayaa markaa sidaad iminka sheegtayba waxay xoog saareen horta in madaarka laga dhigo madaar caalami ah waxaan ognahay madaarka muqdisho sidiisa markiisa hore inuu baaxadiisu qaadi jirtay ilaa 15 diyaarood ay soo fariisan karaan haddaba terminalkan dadku ay maqleen haddii aan iyarka iftiimino macnaha iyo faa'iido u leeyahay maxay tahay airportka ralaada terminalka markaa faa'iido u leeyahay waxa weeyaan horta terminalkan waxaa loo qoondiyey lacag dhan 2 milyan oo dollar lagu kharash geliyey haddaba terminalkan macnaha wuxuu noqonayaa wuxuu ka bedelayaa baaxadii hore ee diyaaradaha intii meesha ay qaadi jirtay hadda waxaa diyaaradaha lagu talagalay fariisan karaan lahan diyaaradood ayaa loo qoondiyey inay fariisan karaan oo ay iman karaan meesha waxaa kale loo qoondiyey inay qaabili karaan 5,000 oo qof maalintiiba waxaa garanaysa markaasi in baaxadda madaarka uu leeyahay oo intii hore aad iyo aad ugu weyn yahay mashaariicda waxaa si daba socdoo kale oo ay weliba wadaan inay tawr weyn u dhisaan oo airportku leeyahay oo isna laga hago diyaaradaha in markaa laftooda ay ku biiriyaan oo keenaan warshad kale oo leerka oo airportka u gaara iyo hangarro kale oo diyaaradu ay leeyihin oo iyaguna laftooda mashaariicda ka mid ah oo daba socda ku ah taas oo ay dhinacii airportka haddaba airportka laftiisa saa la socono shirkad turkiya ayaa gacanta ku haysa oo Fiverr la yiraahdo baa gacanta ku haysa taasoo markaas iyadu kala wareegtay shirkad hore oo Sky la oran jiray oo South African ah runtii intii ay gacanta ku qabatay meeshan waxaad moodaa inuu dhaqaalihii kor u soo kobcayo horumarkii madaarkuna waa aad iyo aad u wanaagsanayo haddaba haddaan ku noqono dhinacan horumarka meesha airportka muqdisho waxay u qoondeen turkiga ama shirkadda u qoondeysay 160 milyan lacag ah in la geliyo oo lagu horumariyo marka qaybihii hore dhacay hore kuwa aan ka sheekeynay bay noqonaysaa qaybihii kalena waa kuwa ka daba iman doona inta waxaa sii dheer dekeda lafteeda waan ka hadli doono waayahay weli waxaan guda jirnaa xarig jarkii dabcan isbitaalka digfer markii waxaa daawateen ama shaashadaha laga daawada ama websaydyada madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha turkiga mudane erdogan labadoodaba oo xiran dharkii dhaqaatiirta oo la geeyey saaladii xagga qalliinka ka socdeen waxaa lagu soo wareejiyey isbitaalka qaybihiisa kala duwan iyo waxyaabaha maaragtay halkaa ka socday dabcan meesha markii ay soo gabagabeeyeen ay shir jaraa'idka ay qabteen waxay kaga hadleen in isbitaalka digfer uu noqon doono mid daboolo baahiyo badan oo dibadda loo aado ama wadamada jaarka loo aado dabcan waa arrin aada loogu farxo dad badan oo soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen waxaa kale oo madaxweyne erdogan uu sheegay in mashaariicdu ay sii socon doonaan ummadda soomaaliyeedna loo baahan yahay inay ka tanaasulaan waxyaabaha dhexdooda ka jira marka ma la oran karayaa mashaariic qura ma ahan ee waxaa kaloo dhex socda ama uu madaxweynaha turkiga ummadda soomaaliyeed u hibeynayaa inuu dhiirigeliyo oo uu tuso mudnaanta ay leedahay dowladnimada ma la oran karayaa taa qudheeda waa mid maarata meesha ku jirta warta de waxaan dadka horseedaya waxa weeyaan mashaariicda horta imka turkiga ka furaya oo mashaariic la taaban karo oo effective runtii waxaa wixii hore la bixin jiray waxaad moodaa inay ka muhiimsan tahay kuwa imka uu qabanayo isagu haddii aan ku noqdo digfer waa isbitaal hore oo dadkan u yaraftiimino isbitaalka digfer waa isbitaaladii waaweynaaye xamar ku yaallay uu ka mid ahaa oo dowladdii hore militariga ay dhistay isbitaalka markaas uu burburay dagaalkii sokay kadib laakiin isbitaalkii cusboonayn bay ku sameeyeen waxay u qoondeen lacag dhan ilaa iyo 60 milyan oo dollar baa ayaa loo qoondiyey in lagu kharash galayo isbitaalkaasi kaasoo noqonaya qalabka isbitaalka horta waxaa ku fadhiya siisba 13,500 oo square kilometer buu ku fadhiyaa isbitaalku mitir square meter buu ku fadhiyaa marka isbitaalkaas waxaa u qoondeeya markaasi in isbitaalkaas ka kooban sida la sheegayo ilaa 200 sariirood waxaa loo qoondiyey in qayb walb kasta oo isbitaal caalami u leeyahay ay yeelato ha noqoto intensive care-ka ama degdega waxa loo yaqaano ha noqoto qaybta caruurta dhalista qalliinka oo qaybta intensive care loo yaqaano 12 qaybood qaybta qalliinka oo ilaa 4 qaybood ah qaybaha kale ee raadiyatada ama qaybaha radioactive ay leeyihiin qayb kasta oo caalamku ay leeyihiinba waa la keenay meeshaas waxaa intaa sii dheer
waxaa la keeni doonaa halkaasi ka shaqayn doonaa kow iyo sagaashan Soomaaliya waxaa la keeni doonaa dhakhaatiir kale oo laftooda ah Turki iyo weliba qaybta finance-ka oo ay Turki gacanta ku hayn doonaan waxaa isbitaalkaas isaga sida la sheegay marka la furo laga qaadi doono lacag yar oo fee yar oo aad u jaban dadka laga qaadi doona si uu isugu celiyo kharashkii uu lahaa isagu isbitaalka markaasi waxaa gacanta ku hayn doona 5 sano hore Turkiga dhakhaatiir waa la keeni doona Turkiga si dadka Soomaalida u tababaraan oo markay tababaraan kadibna ay la wareegaan isaga marka wax loo yeelan doona kaleeto qayb kale oo loogu talagalay oo la yiraahdo cilmi baarista oo dadka aqoonta sare ay baaritaan ku sameeyaan iyo cilmi baarista waayahay weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii Hiil iyo Hawl oo aynu kaga hadlaynay qaybteena caawa aan ugu talagalnay inaan kaga soo tagnay TV-ga caalamiga ee Kalsan TV waxaanu ku guda jirnaa weli mashaariicda dawladda Turkiga ay ugu yabooqday ummadda Soomaaliyeed waxaa jira dhowr sano ka hor kolkii macaluusha baaneed ee ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliya gees ilaa gees hadallo qiiro leh oo markaa ka jeediyay madaxweynaha maanta Tayyip Erdogan oo markaa ahaa ra'iisul wasaaraha dawladda Turkiga hadallada waxaa ka mid ahaa beesha caalamka waxay indhaha ka qarsatay hadimooyinka ama dhibaatooyinka ba'an ee ka jira Soomaaliya waxaynu beesha caalamka tusinaa oo aan u sheegaynaa inay jirto dadnimo iyo damiir ummadeed inay jirto waxa kale oo ka hadlay ummadda islaamka qudheeda ayuu ka hadlay in ay u gargaaraan dadka Soomaaliyeed waxa uu ka hadlay wadamada Carabta oo uu ku sheegay inay yihiin wadamo aad xagga dhaqaalaha uga hormaray in ay la mid noqdeen sida wadamada caalamka kale ee iyaguna dafiray ama istiidsiiyey inay wax ka qabtaan baahida ama dhibaatada ka jirta Soomaaliya hadalkaasi runtii wuxuu ahaa hadal aad iyo aad hiil ah ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtana ay ku diirsadeen dabcan waxaa kale oo Tayyip Erdogan uu caalamka tusay in Soomaaliya oo markaa lagu tilmaamay inay ka mid tahay wadamada ugu halista badan caalamka xagga marka laga hadlayo nimankan al-shabaab marka laga hadlayo burcadda marka laga hadlayo dad dadka qabqablayaasha marka laga hadlayo dadka dhuljiifka iyo daydega iyo mooryaanta wadanka ku badan marka laga hadlayo ayuu wuxuu caalamka tusay in Soomaaliya la tegi karo oo waliba ay tegi karaan madaxweyne Erdogan uu tusay isagoo wata xaaskiisa isagoo wasiiradii aba cabinetka markaa jiray intooda ugu badneed iyo xaasaskooga haddaba hiilada markaa ay dawladda Turkiga xilliga ayada bilowday waxaa la filayay in dad badan qaasatan wadamada Carabta oo kale ay ku daydaan lama filin lama helin lamana arag hiilkii Tayyip Erdogan ama dawladda Turkiga iyo shacabkeeda ee Soomaaliya isla garab taageen wadamadii Carabta lagama helin maxaad u malayn karaysaa haddii aad dhankaa ka eegto adoo aadan soo koobayo sababta ay wadamada Carabta uga maagayaan inay tusaan awoodooda dhaqaale ama hiilka oo dawladda Turkiga ee Soomaalida u helisay maxay tahay sababta uga maagayaan baad oran karaysaa horta waxa weeye markuu waraysa dawladda Carabta iyo Turkiga kala duwan yihiin oo horta Turkigu wuxuu ahaa ninkii berigii Axmed Guri uu jabinayay dawladda dadkii shacabka Itoobiya la dagaalamayay ninkii uu ahaa taageeranayay uu ahaa Turkigu oo raanta mandaqadan aad buu la socday Zeyla iyo Hararna waxaanaha dhismayaasha magaalooyinkaasna wuxuu ka qaatay macnaha kumaan sanadood ka horna qayb weyn buu ka qaatay marka Turkiga horta wuu indha furan yahay xagga Soomaaliya marka ay dawladda Carabta inta waxaa sidii marka hore aan ku araartay aan ka warrayba ninkii ku soo baxay iskuul islaami markiisa hore wuxuu ku bilaabay marka hore xisbi islaamiga wuxuu noqday ninkani markii xitaa wuxuu u waayay hablihiisa waxjaabin inta xitaa hablihiisa oo jajaabin babari ururkii mucaaradka ahaa loo diiday xitaa inay tagaan iskuul jaamacadda tagaan sababta waxay jaamacadda lama ogoleen qof xijaaban inuu galo nin ilaa xadka dhib kala soo kulmay oo islaamnimo kala soo kulmay buu ahaa markii uu kursi ku fadhiistay kadib wuxuu markaa daawado arkay macluushka Soomaaliya iyo inuu Soomaaliya ahaa dhul qiimo leh oo qadarin leh oo bariga hore quwad xoog leh ahaa jirtay oo caalamkana door weyn ka ciyaarayso maanta baabacsan oo qof walba intaa ka qabsanayo taasaa markaa keentay inuu dankado oo dhulkiisa oo markaa Soomaalinimadii dadkii Soomaalida u tago dawladda Carabta door kama ciyaarin runtii waan looga fadhiyay in kale ay door ka ciyaaraan laakiin ma ciyaarin inkastoo ay macaawineen yar oo bixiyaan maaragtay sadaqada iyo ijaaradii iyo waxa ku yar bixiyaan laakiin doorkii isagu ciyaaray ma ciyaarin midda kale waxaan ognahay in Erdogan ninka uu ka nifray dad kale waxaan ognahay markii ay Soomaaliya dhacaysay haddana taariikhdii u yar noqono dalka Itoobiya iyo Soomaaliya isku level baa habrees labada qolo waxay haystay laba nin oo dictator qolo walbana markaa mucaaradka ka soo jeeday markii Itoobiya kunta kilomitir u jirtay uu soo jiray mucaaradka Itoobiya dowladda Ingiriiska iyo Mareykanka la hadlay oo dejiyay oo ku dhulka hadii jaaba burburina oo hadii ay ku sii daayaan arkay in dagaalka meesha ka dhacay dagaal soo ka dhacay oo laga qabtay
lagu qanciyay markaasi mangista caalamiga inuu markaasi Zimbabwe qabto sidaas leeg Soomaaliya markaasi waxa aba yaraatee dee soo dhex kala oo dagaalkaas ka bilaabmaya ama soo dhex kala u yimaada ma jirin laakiin imika Axmed Doori inuu ciyaarayo cusub oo arkayo khaladaad hore dhacay waxay ahaayeen isla markaana door cusub inuu ciyaarayo doonayo inuu yiraahdo war Soomaali dad noqdo oo macnaha isu taga waxaan ognahay Turki inuu hore u maartay u martigeliyay laba shir oo ay lahayn Soomaaliya iyo Soomaaliya nasiib darro wax la dijiyo hal hadda ka soo baxay ma jiraan waxaana filan lahayd in Soomaaliya iyo Somaliland dadka socda ay shirayaba inay eegaan quwad qiimaha leedahay in ninkan Turkiga sidoo quwad u eegayo ayaguna u eegaan oo ay tanaasul badan u sameeyaan oo tanaasulka dee waxa sameeyay xataa Mandela sameeyay oo soo soo xidhnaa qofka ay meesha ku dhigaan walaalkoodna arkaan wax uu qabanayo marka Turkiga door weyn u ciyaaraya laakiin waxa looga baahan yahay in dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan ay fahmaan jiddu leeyahay waayahay waa sax weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii aanu kaga hadlaynay safarkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha Turkiga uu ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliya qaasatan caasimadda ummadda Soomaaliyeed mashaariicdii ayaynu weli ku guda jirnaa inkastoo aynu doonayno inaanu gudaha u sii galno wax yar kadib barnaamijkeena waxaa kaloo doonaynaa inaanu ka hadalno kaabayaasha dhaqaale ee magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah dekada weyn ee caalamiga ah dekadaasi runtii iyaduna waxay ka qayb qaadataa horumarka iyo bilicda iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho maxaad inooga sheegi karaysaa arrimaha uu ka damacsan yahay mashaariicdani ama dowladda Turkiga ka damacsan tahay horumarka magaalada dekada weyn ee magaalada Muqdisho okay dekada iyo airportka iyo wadooyinka wax kamid horta marka hore halbowlayaasha wadanka ee u baahan marka in la dhiso dekada horta shirkadda la wareegtay Albaraka oo Turkiga la wareegtay dowladda Turkiga kan ku wareejisay muddo 20 sano ayaa loo saxay markaa dhaqaalaha soo baxay markaa 5 dowladda qaadanaysa 4 wax qaadanaysa shirkadda Turkiga hase yeeshee waxa Turkiga u qoondeeyay shirkadda soo qoondeysay meeshaas inay ku kharash galeen lacag 80 milyan oo dollar oo ay qalab keenan cusub oo wixii hore ay bedelaan oo ay ku shaqaysay effective ah marka dilbo waxaanay u qoonday waxaanay waliba ay iyagu ay si arkaan ay wadaan imka ay u qoondeeyeen in bishii ay ka soo bixi karto lacag ilaa 4 milyan oo dollar marka taabacayda wax ku tusaa maalgelinta shisheeyaha in loo baahan yahay oo imka Djibouti ba dee waxa maalgelisay Jabal Ali port iyo Dubai barba ay maalgelisay dekada weyn leedahay 4 milyan baxday haddii marka la ogolaado in macnaha maalgelin shisheeye ay meesha timaado oo dad wax ka bartaan rubi cami gaaraysa marka imka dilba shirkadaas gacanta ku haysa waxaana ugu qoondeysay ilaa 4 milyan oo dollar ka soo baxdo qaybahaas saa loo kala qaato ilaa 20 sano shaqaaleyna tababarto qalabkii ugu baana ugu wanaagsan ee casriga caalamka laga isticmaali jiray dekada loo isticmaalana kelimada weyn wax walbana ay keento warun dabcan mashaariicda ay wado dowladda Turkiga waxa dhinac socdo arrimo horumarineed oo ay kamid yihiin sidii loo tababari lahaa daayarta ama jiilasha Soomaaliyeed loo bari lahaa wadaniyada iyo waxqabadka iyo wadanka qiimaha uu leeyahay sida hadaayad carab ku dhufatay waxa laga qaaday magaalada Muqdisho kumanaan arday ah oo Soomaaliyeed oo ilaa imika Turkiga jooga dabcan kana gaaro meel sare waxbarashada waxaanu TV-yada ama meelo badan ka daawanay dhalinyaradii oo midabkooda iyo muuqaalkooda isbedelay farxadda iyo reereynta wajigooda ka muuqata aan la soo koobi kareynin tacliinta ay barteen afafkii kala duwanaya caalamka ay ku hadlayaan waxa inta dheer ciidamada cirka oo uu dowladda Turkiga soo tababartay runtii wax aad loogu farxo meelo badan baynu ka daawanay ciidamo aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo yani leeyli sarkaal qaarkood loo qaatay darajooyin fara badan ku soo qaatay yani heerar kala duwan magaalada wadanka Turkiga waxa kale oo jiro dad shaqaale dowladeed loo carbiyeynayo ayaa jira waxa jiro dhaqaatiir yani dad dhaqaatiir qudooda sidoo kale qurba joog badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira qudooda ka guuray wadamada reer galbeedka oo dib u degay wadanka Turkiga ayuu xakaas ay uga raadsadaan nidaamka maartay waxbarasho ee hanaanka dhaqan iyo dhaqaale ee dowladda Turkiga iyo shacabkooda ku dhaqmaan waxa kale oo halka ka jiro ganacsi yar oo dad badan oo Soomaaliyeed ay magaalada wadanka Turkiga ka bilaabeen waxa soo dhan ma la oran karayaa run ahaantii ummadda Soomaalidu waxay tiraahdaa maalinta aad baahan tahay ruuxa ku heeliyo ma ahan mid cindigaaga ka go'o ama mid aad ilowda ma aha ma la oran karayaa dowladda Turkiga xilli Soomaalidu ay gacan u baahan tahay xilli ay dhaqaale u baahan tahay xilli ay heel u baahan tahay xilli ay u baahan tahay in daranyada laga dhabo oo dirriga ay ku dhiganta laga soo fujiyo ayay dowladda Turkiga u gacan fidisay dabadeedna weli lagu guda jiraa yani mira dhalkii ama mirihii ka soo baxay waxqabadka Turkiga oo ummadda Soomaalidu qabtay
anoo markaas soo koobaya barnaamijkayga qaybtaas aan kaga hadlaya mashaariicdaad marka la soo wada duubo maxaa markaa qofka dheergaradka ah ama qofka soomaaliyeed ee waxgaradka ah ooga iftiimi karayo howlaha mashaariicdaasi ee Turkiga ka wadaan dalka Soomaaliya horta waxa weeyaan haddii aan ku noqono marka hore mashaariicda weli laftooda waxa weeyaan horta weli way fara badan yihiin runtii waxa la soo koobi karaya maaha waxaa ka mid ah 10 kun oo guri oo uu dhisayo Turkigu kuwaas oo noqon dadkii qaxootiga ama dadkii barakacay loo dhisayo masaakiinta waxaan ogahay ninkani Turkiga madaxweynuhu in markii soo koray xaafad Sabola ku taala magaalada Istanbul oo fahansan dadka dhibaataysan iyo dhibaatada ay soo maraan iyo qaxar ku soo yahay dareensan marka garanaya qofka wanaagsan dhibaataysan in loo baahan yahay in la waqti u baahan yahay teeda kaleeto waxaan ognahay haddii agreementkii weli sii wadno ama heshiisyadii ka dhexeeyey Turkigu waxaa kaloo agreement la galay chief of staffka ninka ciidamada ugu sarreeya brigadier general Tahir Cilmi oo marka ay ku heshiiyeen in ciidamada tayadooda la hagaajiyo taas sababta loo sameynaya waxay tahay sababta loo sameynaya waxa weeye badda Soomaalida oo ah 300 oo kilomitir ah ayaa maalin walba intaas milyan oo dollar lacag ah laga balaqaysta oo barakintii maalin walba ka gurtaan iyadoo oo aanay ciidamo habeeraatee badda aanay jirin from gees ila gees oo qolo walba xataa maamul haystaaba nin difaaci kara aanu jirin oo utagi kara aanu jirin taa horta markaas waxaa soo dhamay iyo ciidanka eerkaba iyo security waddankuba waxay u baahan yihiin ciidan adag la dhiso markay in badan laga hadlayo Soomaaliya yiri nabadgelyo ma jirto ayuu ku dhiiray markaasi inuu markaa la galo heshiis cusub oo yiraahdo ciidamada militariga iyo booliska iyo waliba intelligence intaba wala ka dhisaya waxaan hore u soo qaadanay inuu Turkigu dhinaca ku horumaray oo taangiyada samaysto oo diyaaradaha samaysto oo boosaska iyo gawaarida samaysto oo yahay ninkaas haddii xataa agreement fiican la gasho ama heshiis fiican la gasho nin isku filan oo wax walba ku keeni kara uu yahay marka waxa weeyaan warta waa soo sheegtay dadka soo noqdo waxa ninkan waxa weey waa hiil buu keenay walaalnimo iyo muslimnimo waxa loo baahan yahay in dadka Soomaalidu arkaan war ninkan waxa arkay maxay ku arki waayeen waxa weey maanta adduunyada dawladaha lagu leeyahay Brazil iyo lagu leeyahay India iyo lagu leeyahay Ruushka waxa lagu qiimeeyaa qiimaha dalkooda baaxadu leeyahay iyo population leeyahay maanta waqtiga laga hadlayo waxa laga hadlayaa dalkaas intuu leeyahay baaxadiisa iyo population equality leeyahay dhalinyaro oo waxba ahayn meel waxba tari maayo markaas wuxuu doonaya markaa mar walba ku talaya Soomaalida waa isu kaalaya oo dalkiina mideeya oo cadowga iska jira dabcan waa arrin wanaagsan waxaa jira haddaynu isyar dur taagno arrimaha siyaasadda ee ka jira Soomaaliya waxa weeyaan waa arrimo cakiran dabcan waxaa la isku dayayaa mararka qaar in dadka heelka u ah ummadda Soomaaliyeed in laga hortago safarkii iminka madaxweynaha Turkiga oo Soomaaliya ku imanay ka hor qaaqul ama arrimo rabshad ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay taasi oo loola jeeday inuu safarka ku baajiyo ama arrintaasi ugu talagalno ku yimaado dabcan wuu ka hadlo wuxuu yiri anagu wax naga hor istaagi karayo ummadda inaan u qabanno ma jirto markii hore saymaatigiisi dawladda waxa jirta diyaarad Turkiga ay lahayd oo gantaali wax lagu dhuftay dad badan oo kale oo Soomaali ah ama ummad kale oo caalamka oo doonayso inuu ummadda u qabato oo waxa jira laga hor taagan yahay oo dhibaato lagu hayo haddaba waxaan doonaynaa isdul taagno sida qaalibka ah yani haridanka siyaasadeed ee Soomaaliya ka jiro dhowr arrimood ayaynu u kala saari doonaa anagoo sii galayno oo ku sii siqayna barnaamijkeena qaybtiisa gabagabada ah dhowrka arrimood ayaanu bal isleenahay bal mid halkii mirarba aynu insha Allah isdul taagno koow arrimaha ama qorshayaasha isdiidan ee Soomaaliya ku foogan qorshaheeda waxay kaliyihiin kuwan soo socdo ama waxaan ugu yeeri karnaa xagaldaaca ama dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed lagu hayo iyo cidda ka mas'uulka ah koow waxaan oran karnaa beesha caalamka oo ay hormuud ka yihiin waddankan aynu joognay imika Ingiriiska iyo dalka Mareykanka oo lugaha ku wato dhammaan saan cadaale qayb buu ka yahay rabshada ama hagardaamada ka jirto ummadda Soomaaliyeed ama geeyigeedaba labo midowga Afrika oo aanan doonaynin in iyaduna dhinac loo kaco oo ugu talagalay inuu ummadda Soomaaliyeed u kala saaro laf iyo lud inuu laf iyo lud u kala saaro isku dayaya waa qorshe kale oo asagana lid ku ah ummadda Soomaaliyeed saddex igad oo ay garwadeen ka yihiin dawladaha Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyo Uganda iyaguna waxay mar walba diyaar u yihiin inay aargalaan iyo kalax ku dhuftaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloo jira siyaasiyiin Soomaaliyeed
oo gibilka ama muuqaalkooga oo dad Soomaaliyeed u eg laakiin xuq iyo nacayb fogaaday oo ay bulshada iyo ummadda u qabaan in iyadana ay jirto waxa kale jiro oday dhaqameed hurdada laga soo kiciyay oo aan ahayn oday dhaqameedkii dhabta ahaa ama garaad ha sheegto ama ugaas ha sheegto ama suldaan ama malaaq ama wabar ama isin wuxuu doona ha sheegtee oday dhaqameed isaguna hurdada laga soo kiciyay oo aanan waxba reebeynin oo sida ayaxa meel walba diiranayo ayaa asagiina jira intaas oo qorshe oo kala afiiqan oo kala gedisan oo kala halis badan ayaa ummadda Soomaaliyeed hortaala hagardaamooyinkaas iyo marka dhibaatooyinka ummadda lagu hayo haddii markaa caalamkii doonayo inuu ummaddan wax u qabtana ay intaas hortaagan tahay maxaad u malayn karaysaa inay aayaha iyo ummadda Soomaaliyeed iyo facaha ama jiilasha iman doono waxa ay mudan karayaan horta waxa weeyaan waxa dadka Soomaalida loo sheegaya saad ugu sheegteen kaba waxa horta niman dawladda aad la daalanteen bil hore daalanteen oo maantana ku peacekeepers waxay ku qabanayaan aad garan kartaa nidaam shalay daalanteen oo ku soo galay kulan ku caawinaya kullu waxa gidamo waxaan iyo kuleemanaya iyo kala tuur dawadanta ku jirta oo la socotay oo Daniel Armoy wuxuu ka yiri bari hore jaarka tala Mareykanka mar hadlay anuu ku faraxsan dawladda Soomaaliyeed oo adag soo baxdo marka nin dawladda dariska dawladda maanta ku faraxsan in dawladda Soomaaliyeed oo adag soo baxdo ma jirto hagardaamooyinka ashaysan way farbadiyihiin oo waxyaabaha dadku ay doonayaan wax weeyaan maalmo waxa doonayaan in maamul goboleed la sameeyo oo maamul goboleedkaas oo dawladda dariska marba ka amar qaato laakiin waxa soo wax lagu ilaawi karaa dadku markay isfahmaan oo la waryaanahay tirsan samahan de aan wadankiina horumarin oo de aan iskaashano taasaan wax laga baxay arrimaha noocaas laakiin waa sii horta wajibta waxa soo gabadhka oo hor yaala way jiraan laakiin dadkii siday ugu bixi lahaayeen ay dadkii iyaga loo baahan yahay dadkii inay isdhigtaan maaha oo waxa weeyaan dadku way adkaystaan oo ay dhibka ka baxaan naftu waayahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaanu ku soo afmeeri doonaa insha Allah inagoo ummadda Soomaaliyeed u rajeynayno ama u filayno in ay isfahmaan oo bogooga Ilaahay uu burcad u sumariyo waxaanu rajeynaynaa dhammaan gayiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ummadda ku nool inay fahmaan qoomiyadnimadooda iyo Soomaalinimadooda barnaamijkeennii dhabka hadal ee aynu maanta ku soo qaadanay xubinteena ugu magac darnay heel iyo hawl oo aynu kaga hadlaynay safarkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha Turkiga uu ku yimid Soomaaliya qaasatan xarunta ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaynu intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijku waxa idin daadahayna anigoo Faysal Cabdullaahi Abrone waxa iga la qaybqabtay aqoon-yahan Aadan Kaahin waxa xagga farsamada inoo fadhiya injineer Bowcame intaan ku kulmi doono barnaamijka mid lamid waxaan idin rajaynaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh